Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada channelka Ombi Technology ee ka baxa casharada ICT-ga. Waxaan maanta idin tusayaa qaabka loo hackgareeyo ama loo attack gareeyo wireless-ka ama wifi ama access point sida u taqaanidba wireless-yada guryaha idinku xiran sidee uu qof kugu soo xirmi karaa kuna taagi karaa mar hadduu kugu soo xirmana muxuu ku ka qaban karaa muxuu network ka sameyn karaa waxayna isweydiisaa marka uu qofku network ku soo xirmo ama wireless-kaaga hadduu attack ku sameeyo uu attacking-ka ku guuleysto qofkaas network-kaaga hal mar hadduu gacanta ku dhigo everything ku sameyn karaa because of wax illegal ayuu gadan karaa wax dhibaato badan ayuu ku geysan karaa systemada guriga ku xiran dhan ayuu hijacking ku sameyn karaa waa afduuba karaa marka waa be aware waa inaad ka taxadiraa systemkaaga wireless-kaaga waa inuu ku xiran yahay password aad u adag waa inuu ku xidhnaa oo characterkiisa aad u dheer yahay special characteriska leh waxyaabo badan leh marka waxaan idin tusayaa sida in ay easy tahay inuu qof jabsado wireless-kaaga marka mostly laakiin dadka waxay dhahaan WPA iyo WPA2 lama jabsan karo way adag tahay laakiin waa sheeko weeye waa la jabi karaa waa la attack karaa oo waa lagu guuleysan karaa attack-gaas lagu qaado WPA2 marka anagu waxaan WPA2 ayaan waxaan ku qaadi doonaa attack waxaan idin tusi doonaa inaan ku guuleysano marka before intaynu casharka galin waxaan idin sheegayaa only inay practicalka ku sameysaan gurigeena internetka ku xiran network gurigeena ku xiran only click inaad ku sameysaan dadka internetkooda inaadan ku sameyn because of dhibaato badan ayaa kaa soo gaari kara sida wadamada qaar waxaaba u degsan qofka haddii marba uu sameeyo wax illegal ah aan ethically aan ku jirinba waxa weeye qofkaas xarig ayuu mutaysanayaa wadamada qaar sida Japan iyo umalanaya inay tahayba qof hadduu illegal wax ku sameeyo in dilba tahayba marka waa inaan ka taxadiraa waa inaan akhrisaa shuruucda u degsan wadanka aad joogtid marka waxaan idin tusayaa waxa weeye only educational ayaa idin tusayaa maaha inaad dadku hamgareysaan ama kula wacdaan marabo marka waxaan idin tusayaa qaabka loo hackgareeyo sida ugu fudud marka waxaad u baahan tahay in aad wireless attack ku sameysid waxaad u baahan tahay wax la yiraahdo adapter marka ani adapterkaas ayaan ku xirayaa then adapterkaas wuxuu ku ka caawinayaa in wireless-ka ku soo xirmo wireless-ka ku dhow inuu ku soo qabto wireless-ka marka u baahan tahay aad ku sameynaysaa marka waxaan gali doonaa aniga adapterkayga ayaan gali doonaa laakiin adapterka waa inuu aqbali karaa wax la yiraahdo monitor mode monitor waa inuu aqbali karaa marka waxaan u baahanahay inaan virtual machine dhaho aan saa u ximo marka uu ku soo xirmo haddii aad hadda tiraahdo ifconfig weli nama uusan tusiyo interface-ka WLAN-ka aan ku xirnay marka laakiin haddii aad hadda fiirisid aad tiraahdo clear ifconfig aad tiraahdo wuxuu tusiyaa inaan haysano interface saddexaad inaan haysano marka waxaa leedahay clear wconfig hadda idin tuso waxaa leeyahay WLAN 0 ayaa haysana marka laakiin mode waa managed way marka waxa u baahan tahay halkaas inaad ka dhigtid monitor sida looga dhigana waa in tusiyaa marka waxa leedahay sudo airmon ayaa leedahay check kill
locally wuxuu dilayaa processka iyo markaan aan dilaynaa marka kadib clear ay iska leedahay then iska titiraysaa labada tan waxaan leedahay start w0 marka wuxuu noo sameynayaa waxa la yiraahdo monitorka modeka inuu monitor nooga dhigo sorry waa khalday start way monitorka ayuu mode enable ayuu ka dhigayaa marka haddaad tirahdid iwconfig haddaad tirahdid wuxuu kuu sheegayaa modku inuu monitor yahay marka hadda waxaad diyaar u tahay inaad attack samaysid in aad ana wireless u baahan tahay inaad encrypt inaad crack ku samaysid passwordkiisa ayaa diyaar u tahay marka waa inaan discover sameynaa horta wax discover waa inaan sameynaa inta wireless noo soo qabta ayaan fiirinaa marka waxaa leedahay aerodam wlan 0 marka aad tiraahdo wuxuu ku tusayaa wlan wirelessyada ayuu kusoo qabanayaa laakiin ani already wirelesskayga waan arkaa marka wirelesskayga waa arkaa marka wirelesskayga waxaan leeyahay control C because of aan waxaan u baahnaa inaan taa ku sameeyo waa only wirelesskayga way okay marka waxaa leedahay mousepad-ka soo qaadanaysaa marka ani waxaan u baahanahay in aan copy ku sameeyo sababta tuja kama xigdi karo channelkana waxaa leedahay channelkiisa waa one okay intaasaan u baahanahay clear ayaa iska leedahay marka waxaa leedahay sudo aerodam waxaa leedahay d wlan 0 maxay tahay only this ayaan u baahanahay inaan arko wirelesskayga ayaa u baahanahay in la ii sameeyo inaan arko tan waxaan arki doonaa device kusoo xirmaya oo hal device kusoo xirmay marka deauthenticate inaan sameeyaa u baahanahay marka haddii aad tirahdid control C haddaad iska tirahdid oo halkan tirahdid open terminal sudo haddaad tirahdid waxaan u baahanahay inaan dhaho aerodam png/w magacaasi la dhaho hub 01 sidana channelka oo 1 ah bssid-gana oo laga wado MAC addresska waa access pointiga oo kan ah marka waxaa leedahay wlan 0 then wuxuu sameynayaa horta haddaan idin sharxo waxa weeye aerodam png-ga w waxaan ka wada right file ayaan sameeyey filekan waxaan ku furi doonaa waxa la yiraahdo wire shaq ayaan ku furi doonaa kanna waa channelka oo halkan arkaysay channel 1 weeye kanna bssid waxaa laga wadaa MAC addresska wirelesska ama access pointiga wlan 0-gana waa interfacekeena marka haddii aad fiirisid deauthentication aan sameynaa ayaan u baahanahay marka hadeer marka waxaa leedahay clear ayaa leedahay sudo ayaa leedahay airplay ng ayaa leedahay dauth waa 0 minus a oo MAC addresska aad gelinaysid then waxaa leedahay wlan 0 maxay tahay tan waxaan sameynaynaa deauthentication device-ka ku xiran ayaa waxaan ku sameyn doonaa deauthentication waa ka saaraynaa waxaan ka tuuraynaa wirelesska sida DOS inaan sameyno ka denial of service camal weeye wuu ka saaray laguma soo xirmo then qofka markuu kusoo xirmo wb handshake ayaan intercept ku sameynaynaa marka haddii wuxuu wadaa in uu ku sameeyo then halkan la fiirinaysaan waxaa kusoo xirmaya wb handshake ayaa laga qaban doonaa haddii halkan anti failasha ayaa lay sameeyeysay marka failkaas waa very important aan u baahanahay
you see WP handshake soo qabanaya markuu okay WP handshake uu noo soo qabtay marka weli waa wadaa oo ونoo soo qabtay WP handshake saa arkaysid halkan AC marka kana waxaa leedahay stop ayay leedahay clear ayaa iska leedahay halkan imo marka waxaan u baahanahay in aanu failka kan horta ku furo waxaa la yiraahdo wireshark halkan tag waxaa leedahay wireshark ls cd desktop ayaa leedahay ls marka failkan ayaa u baahanaya inaan ku furo wireshark then enter baa leedahay marka inta tirahdid halka kan ayaa waxaa leedahay apple protocolka enter ayaa leedahay haddii aad hoos u dhaqaaqadid marka aad tirahdid 3 authentication camo WP key data you see ba waxaan u baahanahay inaan encrypt ku sameeyo zoom inta idin tuso okay this one ayaa waxaan u baahanahay inaan encrypt ku sameeyo okay you see marka waa iska xiraysaa clear ayaa leedahay halka kan WP handshake kan ayaa leedahay clear marka waxaan u baahanahay wax la yiraahdo iCrack ayaa u baahanahay sudo iCrack ng ayaa leedahay failka magaciisa ayaa sheegaysaa dan waxaa leedahay w user share word list marka kana intaa ku sameynaya brute force ku sameynaya wuxuu sameynayaa password badan ayaa ku jira halka kan haddii aad inta tan hadda qaadatid copy aad halkan tagtid aad tirahdid cd ls aad tirahdid halkan failka waa kan failka kan waye haddii aad ka tirahdid aad fiirisid rock wuxuu ku sheegayaa inta password oo meesha ku jira waa 14 milyan password waye marka ka noqo marka attack ayaa ku sameynaysaa wuxuu marka noo raadinaya passwordka markuu passwordka soo helo ayaan marka isku imaanana marka aad fiirisid isla markii uu soo helay keep found way okay waa kan marka waxaad fiirinaysaa passwordkaas
ayaa fiirinaysaa in uu saxan yahay. Google-ka tag, halka kan waxaa leedahay 192 see marka sidaas ayaa tag lagu sidaas ayaa wax loogu sameeyaa tag wax loo yaqaano wireless. Marka waa simple in aad jees wireless. Marka wireless ayaa ka taxadee si aad ka taxadee la ilaaliyo qofna ku soo internet oo inaad sameysaa password complex marka waa inaad adiga taxadidaa networkaaga. Marka qofna ha ku dhaawacin, dhibaatana ha u geysan, cidnana ha jabsan, cidnana ha raadsan. Just naftaada keliya naftaada keliya iska ilaali, sababtoo dunida tan badan waxaa ka jira bad guys ay leedahay. Dadkaas marka ay kusoo weeraraysa